بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مدن قدومي قدق الدورشة xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya shaqaalaha baarlamaanka ciidanka amniga bahda warbaahinta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mudanayaal imarweyn xildhibaanada sharafta leh marka hore waxaan idinku hambaliyaynayaa xilka la idin soo doortay waxaan ilaaha ka rajaynaynaa in dhammaantaannada ilaaha nagu guuleeyo matalaadda shacabka Soomaaliyeed ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaa sharaf weyn ii ah anigoo ah xildhibaan maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan inaan idin soo hor istaago si aan idinku soo bandhigo murashaxnimadeyda xilka guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo qorshayga ku aadan xilka guddoomiyaha golaha shacabka mudanayaal imarweyn xildhibaanada sharafta leh waxaan ahay shakhsi qabtay xilal kala duwan oo dowladeed laga bilaabo heer degmo ilaa heer dowladda dhexe waxaan soo qabtay xilka guddoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka degmada Baydhabo xilka wasiirka wasaaradda hantida qaranka iyo qalabaynta wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha wasiirka wasaaradda gaashaandhigga waxaan ka soo shaqeeyay dhinaca diblomaasiyadda oo waddankayga jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ku matalayay darajada danjire ama safiir waxaan soo qabtay xilka guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka tobnaad mudanayaal imarweyn xildhibaanada sharafta leh baarlamaanka federaalka waa hay'adda ugu muhiimsan hay'adaha dowladda baarlamaanka waa hay'adda sharci dejinta ee dowladda asaga ayaana go'aamaya ansixiya xeerarka siyaasadda guud ee dowladda qorshaha guud ee horumarinta dhaqaalaha bulshada iyo miisaaniyadda guud ee dowladda golaha shacabka waxaa si gaar ah u khuseeya la socodka golaha waxqabadka hay'adda fulinta iyo gudashada waajibaadkeeda golaha wuxuu leeyahay awoodda la xisaabtanka iyo korjoogteynta hay'adaha dowladda ee heerka qaran gaar ahaan dhinaca dhaqangelinta sharciyada sida ku cad qodobka 69aad ee dastuurka ku-meel gaarka ah ahamiyadda golaha shacabka ee baarlamaanka uu leeyahay waxay ka timaadaa matalaadda shacabka Soomaaliyeed sidaas daraaddeedna loo arko inuu matalo uuna ku dhaqmo awooddiisa sida uu xeerinayo qodobka 63aad ee dastuurka ku-meel gaarka ah xildhibaanada sharafta leh haddii aad kalsoonidiina isiisaan waxaan dadaal badan ku bixin doonaa sidii loo gaari lahaa ujeedooyinka iyo hadafka dastuurku tilmaamayo waxaan ilaalin doonaa ku dhaqanka dastuurka iyo xeerhoosaadka iyo jiritaanka awoodda baarlamaanka waxaan mudnaanta koowaad siin doonaa isku duubnaanta iyo wadajirka xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka waxaan tixgelin doonaa aragtidiina iyo xorriyadda hadalkiina iyo go'aanadiina waxaan ilaalin doonaa cadaaladda iyo sinaanta xubnaha golaha shacabka dhexdooda mudanayaal imarweyn xildhibaanada sharafta leh xasaanadda xildhibaanka golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xasaanaddu waa nooc ka mid ah ilaalinta sharciyeed ee dastuurka ku-meel gaarka siiyey wakiilada dadweynaha ee baarlamaanka si wakiilka uu u guto shaqadiisa dastuuriga oo buuxda isla markaasna loo helo hay'ad sharci dejin oo ka fog saamaynta hay'adda fulinta sida ku cad qodobka 70aad ee dastuurka ku-meel gaarka maxaan mar walba ilaalin doonaa inaan lagu xadgudbin xasaanadda xildhibaanka golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaan aaminsanahay xildhibaanka mowqifkiisa iyo aragtidiisa inuu u madax bannaanaado in lagu gaari karo danta guud xildhibaanada sharafta leh xuquuqda gurnada iyo daryeelka xildhibaanada sida ku cad qodobka 70aad ee dastuurka ku-meel gaarka uu xeerinayo gurnada iyo daryeelka xildhibaanada waa xuquuq dastuuri ah waxayna ka mid tahay mas-uuliyadda guddoomiyaha golaha shacabka haddii aad ii doorataan guddoomiyaha golaha shacabka waxaan ballan qaadayaa inaan juhdi badan gelin doono xaqiijinta gunooyinka iyo daryeelka xildhibaanada
sidaasi oo kale caafimaadka xildhibaanada waa muhiim waxayna u baahan tahay in mudnaad gaara la siiyo ilaahay naguma keeno haddii ay dhacdo in xubin naga mid ah ama qoyskeeda ay soo wajahdo caafimaad darro waxaan u istaagi doonaa inay helaan tashiilaadkii loo baahnaa in lagu daaweeyo haddii ay dhacdo in waddanka gudihiisa wax loogu qaban waayo waxaan si degdega ugu diri doonaa waddanka dibaddiisa meesha markaa dhakhaatiirta ay ku taliyaan in lagu daaweyn karo mudanayaal iyo marweyn xildhibaanada sharafta leh waxaan xoojin doonaa doorka golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka uu ku leeyahay baarlamaanada caalamka doorka baarlamaanka hadda kuma eka oo keliya howlaha sharci dejinta ama korjoogtaynta xukuumadda iyo miisaaniyad maaliyadeedka balse diblomaasiyadda baarlamaanka waxay noqotay tiirdhaxaad taageeridda hay-adaha fulinta iyadoo la xoojinayo xiriirka dibadda ee dowladda iyo isku duubnaanta taasoo soo jiidan karta fursado maalgashi xoojin kartana isfahamka iyo wada shaqaynta nagala dhaxayso dunida diblomaasiyadda baarlamaanka waa aalad muhiim ah dhinac xoojinta siyaasadda arrimaha dibadda ee dalkeenna waxaan dardar gelin doonaa ka qayb qaadashada howlaha baarlamaanada caalamiga iyo kuwa gobollada oo aan ka mid nahay waxaan dhisi doonaa guddiyo tayadooda sarrayso oo nagu matela baarlamaanada caalamiga iyo kuwa gobollada waxaan kor u qaadi doonaa ka qaybgalka shirarka caalamiga iyo kuwa gobollada isdhaafiga wufuudda iyo howlwadeennada shirarka joogtada ee sanadlaha ee baarlamaanada caalamka sidaasi oo kale waxaan xoojin doonaa diblomaasiyadda baarlamaanka ee labadgeesoodka ah guddiyada saaxiibtinimada baarlamaanka guddiyadan ayaa ujeeddadoodu tahay sidii loo xoojin lahaa guddiyada saaxiibtinimada baarlamaanka guddiyadan ayay ujeeddadoodu tahay sidii loo xoojin lahaa xiriirka baarlamaanka dalkeena uu la leeyahay dalalka kale xoojinta xiriirka iskaashi ee dhinacyada siyaasadda dhaqaalaha dhaqanka isdhaafsiga fikradaha khibradaha xogaha booqashooyinka iyo wixii la mid ah sidaasi oo kale waxaan guddiyada saaxiibtinimada u diyaarin doonaa qorshe iyo istiraatiijiyad kaabi karta siyaasaddaannada arrimaha dibadda qorshayga ku wajahan dhallinyarada soomaaliyeed dhallinyaradu waa tiirarka qaranka soomaaliyeed saldhigna u ah kobcinta iyo horumarka bulshada soomaaliyeed waa lafdhabar lama huraan ah dhallinyaradu waxay door muuqda ku leeyihiin isbeddelada bulshooyinka dhallinyaradu waa cudud bulsho aad u weyn waana maskaxda iyo xoogga dhaqaajiya bulshadeenna in ka badan 70% dadka soomaaliyeed waxay da'doodu ka yar tahay 30 jir heerka shaqo la'aanta dhallinyarada waxaa lagu qiyaasaa 60% in ka badan xildhibaanada sharafta leh haddii aad fursad ii siisaan inaad noqdo guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka waxaan juhdi ballaaran gelin doonaa inaan kor u soo qaado doorka golaha shacabka uu ku leeyahay horumarinta dhallinyarada soomaaliyeed dhallinyarada xildhibaanada ah ee golaha shacabka waxaan kala shaqayn doonaa sidii ay u soo bandhigi lahaayeen fikirkooda ku wajahan mashaariic lagu horumarinayo ay ka faa'iidaysan karaan dhallinyarada soomaaliyeed dhinaca xeerdejinta howlaha iyo waajibaadka culus ee hor yaalla golaha shacabka waxaa ka mid ah howlaha iyo waajibaadka culus ee hor yaalla golaha shacabka waa mid aad u baaxood weyn loona baahan yahay in la geliyo waqti ballaaran gaar ahaan shuruucda u baahan in la waafajiyo nidaamka federaalka dalka kuwaas oo aan isleeyahay muhiimad gaara ayay u leeyihiin dhinaca wada shaqaynta dowladda federaalka iyo dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka waxaana ka mid ah shuruucdaas dhammaystirka dastuurka kumeel gaarka ah xeerka maqaamka magaalo madaxda dib u eegista shuruucda garsoorka dib u eegista shuruucda ay ku dhisan yihiin hay-adaha amniga sida booliiska iyo nabad sugidda mudanayaal marweyn xildhibaanada sharafta leh hoggaaminteydii baarlamaankii tobnaad waxaan ku guulaystay in golaha shacabku ka nabadgalo kumilmidda hay-adihii dowladda ee ka shaqaynayay arrimaha doorashooyinka waxayna dhaxal siisay in shaqada golaha shacabka soo gaarto
14 abriil 2022 oo ah maalintii la dhaariyey baarlamaanka 11aad si ka duwan sidii ay ku xirmi jireen baarlamaanadii naga horreeyey ee 8aad iyo 9aad oo iyagoon dhammaysan wakhtigooda shaqada istaagi jirtay gebagabadii xildhibaanada sharafta leh waxaan idinkaga mahadcelinayaa wakhtiga aad isiiseen iyo sida aad ii dhegaysateen hada wabillaahi towfiiq